kadan tahay waxa ka jira kulan runtii u dhaxeeya Soomaalida iyo Eritrean marka kulan adag ayaa galabta dhaxmari doona Soomaaliya iyo Eritrea marka waan arki doonaa wixii kulankaasi ka soo baxo Soomaalidu waa ka halkaas ay taagan aad macnaha waxa idinka qarinay dagaalkaas ay idinka qarinayo laakiin Eritreanka waa kuwa oo halkaas ay taagan yihiin laakiin Eritreanka aad ay noogu badan yihiin ninkaas arkaysan waa Cabdiwaasic nila dhaho bal ka waran Cabdiwaasic galabta ka waran maxaa rajaynaysaa galabta ka waran galabta horta waan guuleysanaynaa marka koowaad mar labaadkana jawi fiican baan qaadanaa waa samarkii waa xilligii la yiri dadku fit ha noqdeen yaani calooshu ka soo bixin umada galabta maxaa rajaynaysaa gool inaad dhalis ka waran wallahi laga yaabaa galabta halkee ka ciyaaraysaa halkaan ka ciyaartaa اوكي هي وما سنتهاي كاس وحو عبدواسع وكترسن سوماليدا قلبت معناها وبخي دونتو وريانك سوماليدا كترسنتو وهاك markaan waxa way waxaan idin keenayaa Soomaalida markaan waxaan ku qaban doonaa kabtanka naadiga waa kuwa Soomaalida kabtanka naadiga ayaan ku qabanaynaa كابتن هاي قلبت كورن قلبت وجهي دوما ما صومالية التريان قلبت هاكنا بعدنا بقى هاي محرجيني سا قلبت النادي ما دام هذه كابتن كودات هاي صومالي ذا كله يورت قدرنا ما عادي لكن الله عمره هو لصق يارني ولصق دبي قبل يوسف بدي يشتري إبراء سدحت أوه لبدي كلهم هو كسب هم يقولوا ساعات ما أنتم هم هاي كله وان قرته ما أنتم كل شيء ناين عن أكيد هو كسر نحسب هي كور الرجال قلبت كور صومالي ذا ما كافيرس صح كل والوجه ذا ولا داون دون عيارتس اوكي اوكي وارك دونا ciyaarta waxay ku dhamaatay markaana waxa waa mid kamid ah ciyaaryahanada galabta Soomaalida ay ku duuli doonto adigoo magaca ku bilaabo bal ka waran kulanka galabta sida u aragtaa magacayga horta markii wad waan Diin Mustafa maantii kulanka galabta aad iyo aad baan ugu faraxsanay walow qoladan la ciyaarin Eritrea aad u adag yihiin iyaga laftirkooda niman la yeelsan kara maaha laakiin waxaan rajaynaynaa in magaca Soomaaliyeed aad ugu dagaalamo laakiin sidoo kabtanka noo sheegay laba kulan hore inay ciyaarteen waa ka soo badiseen ka waran way jirtay laakiin hadda waxaad moodaa xogaa inay sidii hore ka yar adag yihiin لكن كله وان تدالنا هاي كبرن قلبتها إن أقول لسه ملاقي يا وان كل شوينا فرحت بيتها إن أنا ضدك متريا ملعب الصوماليات متريا هاي ضدك كنت داونا محل هذا مرك ضدك داونا أديات دون السلامية لما قوشنا نضحنا الله إن صوتها جارة وان قلت قلبتها هالكيك عيارسة أو السلالة توبرا وكوحلين دونا قد كده كل شيء أنت بدن ولو أن مرة قارن حتى الدفاع شذا كريكرو لكن كل هذا خد كده أيام فينا اوكي ما هو وحرجينا قلبت الصوماليين إنه يقول قرت إن شاء الله سارجينا Soomaali hanolaato oo ma santahay markaan waxaan ku qabanayaa asxaabta kale aan ku qabanayaa markaan waa kuwa Soomaalida asxaabta waa kuwa CR7ka galabta lagu tashan doono waa kana CR7 galabta lagu tashan doono waa وعياريانك كدوشة Soomaaliya oo galabta runtii namatalayo waxaan ka rajeynayaa inuu macnaha galab ka waran galabta sida aragtaa kulanka waxaan arkay inuu badan ay sida la sheegay ciyaaryahanada inta badan waxay leeyihiin maadaama adiga ka mid tahay ciyaartooyda ugu wanaagsan ka waran galabta inaa gool lisma laga yaabaa anoo raggan mataqaanay waa horta meeshan waan ku faraxsanahay halkan maadaama uu siyaasi bin half kor fadhiyo dambe ayaan soo kaleeyaa laakiin badan baan muujinaa maanta waan gartay maanta bilaa kabaan hay kabaayigini baa ku ciyaaraya respect baan u sameeyay laakiin taas waxay keenaysaa in ciyaartooyda xogaa niyad ay ku bilaabaan maadaama qaybta dambe ay soo galayso waxay dib baa jooga badan oo laacibiina ayaa jooga marka insha Allah waanu badinaa maanta laakiin Eritreanka ka waran soo in aad u adag yihiin alle Soomaali oo qaal leeyahay jooga hore ayaa sidii warku soo gaaray لكن ما أنت أنا قاعد متكقادن. ما أنت أوكي وما سنتهاي كاسن وحوها متكمل يعني أنا الصومالي ذا أو CR7 هم قاعدين. كاسن وحوها ومتكمل يعني أنا رنتي ما أنت الصومالي مثلي دونا وحوا فنادم وحوا فرنسيس كورن قلبتها سمترو سدوا أركع عيات كورن. ربط ورينا حد كاب وحنا بدنا إبر.
أفريقيا بالبكرة ما نسقال هذا ما تعيار اقتصادية. وان كرتي كورن قلبت هلك عياري صارت waxaa ka ciyaaraya midfield defensive defensive ka ciyaaraysa waan gartay ka waran marka Eritreanka sida u maleynay aad u adeegina leeyahay galabta way soo dhiseen bal ka waran wallahi siya adkaadaan laakiin Bruni ma qaanabna waa gartay marka Soomaalida ka waran trainingkooda ka waran Soomaalida Bruni way taqaanaa wayna fiican dhalinyarta meesha joogtana waa dhalinyar adag barad waan gartay okay marka galabta waxa leedahay Soomaalidu way guuleysanaysaa leedahay okay waa maasantaa kaasina wuxuu ahaa samatir oo kamid ah ciyaaryahanada Soomaalida oo runtii galabta muujinaya dareenkiisa markaana waxa waa tababaraha naadiga iyo ciyaaryahan ayuu isku yahay Obre magaciisa waxa la dhahaa Obre والله مركا بل كورن توبراها كوحدة ما دام أتاهي إيو كابتنك كورن قلبتها سيدي دريميسا waxa weeyaan dhalinyaradii ma sha Allah dhamaantina ka damaato adiga Facebook halka channel ku wareey maanta marka wax duduulis maanta waan ka badinaa Eritreanka waan ka badinaa insha Allah dhalinyarada joogta ciyaar Barcelona aanu ciyaarnaaban doonina waan gartay ka waran galabta marka natiijadaas leedahay in Soomaalida guul gaarto ka waran marka dareenkiina insha Allah biidnillaahi kariim waxay noqonaysaa ilaa 6 iyo 2 meelahaas waan gartay ku rajeynaa inaan ku badino waan gartay bal sida la sheegay ka waran Soomaalida trainingkooda bal diyaar garowgiina ka waran waa sidee والله ترينينك إنك استيقظت كده أي هوله فرها بدن لكتير أنا ترينينج فرا بدن الحين هذا ديس إريتريان كبده وان كان قناعيو شخص نوديكا أدبن قلبت رجال وناك سنتها أي سواليد كداون اسمح لها وحلاها دمان تيم كبده سبحان الله يعني على صوتها يا سواليد markaan waxa idinku qabanaa gudoomiyaha naadiga Soomaalida ee degan wadanka Jarmalka gaar ahaan magaalada Hildesham may waa ciyaariyahan runtii waa naga dhaawacan yahay galabta uu ciyaari lahaa laakiin uu dhaawacan yahay bal Cabdi Casiis ku soo dhaw الحمد لله صاحب احمد يعني ميديا برودكشن وما تقرب كل سو بوقتي in waxa la yiraahdo maaragtay maanta loo timaado marka alxamdulillah waa faraxsanahay dareenkaygu aad u wanaagsan ka waran maadaama galabta kulanka aad ka maqan tahay bal ka waran sidee dareenkaadu u yahay runtii wallahi dareenkaygu maanta wuxuu faraxsan yahay maadaama aan ciyaarayno dhinacna xoogaa waxaan ka yara dareemayaa si kale maadaama aan garoonkii iyo asxaabtaydii aan garoonka la galaynin laakiin alxamdulillah asxaabta inta joogta oo meerayaan loo ka mid yahay yani ba garoonka lagu matali doono dareenkaygu aad buu fiican yahay waxaan rajeynaynaa guul Eritreanka waxaan la ciyaarnay 2 kulan oo hore labada kulan ee hore waan dheerayay labada kulan ee hore natiijo fiican baan kala tagnay oo guusha anaga la dhacday maanta waxaan rajeynayaa sidaas la mid sidii hore guul fiican oo 4 inaan ku duldo waan gartay waa kugu soo laaban doona Cabdi Casiis markaana waxaan siinayaa kabtan ku xigeenka naadiga Soomaalida ee degan wadanka Jarmalka gaar ahaan Hildesham salaam ya asxaabta gaar ahaan Axmed kamaramaanka kooxda maanta duubaya gaar ahaan waxaan ka salaamay Cabdi Casiis oo halkan taageero iyo bogaadin la tago nooyinkeega nuwahayaga sida u taqaanaan oo anaga naga yara maqan marka waxaan leenahay guulde 6-0 maxay horeba uga badinay 6-0 insha Allah daayo coach wala jooga waa ka markaan CR7 keena ayaa ku soo laabtay bal ka waran CR7 keena Cabdi Casiis marka insha Allah khayr badan hadana asxaabta Cabdi bayna sugayeen waxaan rajeynaynaa ama jeclaan siyaasad iska bilaabano inta wixii ka dambeeyay waxaan rajeynaynaa inaan ka dhigano marka fiican baan rajeynaynaa yani adiguna dad kulay waxa taageertay weyn oo kooxda kamid ah marka waan rajeynaynaa in ay ka dhigo insha Allah maaragtay marka engineer hadana waxaan nala joogaa engineerkii Axmed waxa la yiraahdo Siriani Media Production Axmed adigu bal dareenkaaga ka waran in badan baad wareysatay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kamid noqdo ciyaaryahanada loo soo xushay galabta inay ciyaaraan galabtana waxaan u bixinaa dhigeena wadanka Eritrea waxaan rajeynayaa in Soomaalida ka waran dareenkaaga maanta yani kulli kulamo badan waad ciyaartay laakiin maanta waa markii ugu horeysay Eritreanka aad ka soo horjeesanayso marka maxaad rajeynaysaa waa markii ugu horeysay runtii aan wadan kubadda la ciyaaro maadaama wadanka Jarmalka markaan imaaday uu yahay kulankii ugu horeeyay Eritreanka u baxay waxaan rajeynayaa galabta in guusha ay raacdo doonto balay natiijada maxaad rajeynaysaa maanta in ay ku dhamaan doonto 4 iyo 2 ay guusha ku raaci doonto Soomaaliya goolashan waxaan dhalin doono saaxiibkayga Abshir Daadir iyo CR7 keena oo galabta aan ku duuli doono iyo Farol ayaan rajeynayaa inay dhalin doonaan 4 gool waa tahay saaxiib okay waa insha Allah intaas ku soo koobaynaa maadaama waqtigu inagu yar yahay aad baa markay
kiisan baa la dhahdaa waa tuulo hoos timaada fatima soo yaa geedka magaalada Fiisay marka garoonka lagu ciyaarnayo waxa ku ciyaarsan dhalinyarada Eritreanka iyo dhalinyarada Soomaalida oo waqtigooda mobilkii soo qaada saar qaadanaya ee garoonka aad arkaysa waa kaan ku jira borsan waxa weeyaan borsan arkan ay Soomaalidu tan ku jira mobilkii ma fahanteen marka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay fiidiyoga cidii daawata share comment iyo like raaciya Soomaalida ayaa hadda hogaaminaysa يا بس شبك يريس كش برصة برصاص تيوا تبرسل كم تكسر لعبة بجديد يلا صاحبي قاعد أقول فضلان ما كنت مسير هذا كي أنا ما سويني لارك ما كنت لا أفرتش أنت لارك ما كنت لا ما يسنا وصوق لسان أنت ما اختس فون تعيش فانجان فون يا فانجان das heißt fünf Minuten noch oder kann das nicht weiß genau nicht was sage ich jetzt Garre قد عيارت برا hallo Jungs hatte schon auch Hey, hallo. عرب كاكاو صار دسك حقهم بحكوده كان حقهم بحكوده تاكن واحد ديلي مات هو التريانيش gegen somalische Leute und ja die Spiele ist Ding so Hassel und ja die Spiele jetzt fangen an gleich erst Absakur spielt die vorne Seite vorne, linke Seite glaube ich. Hier ist Abre, heißt Abdurrahman, spielt hier hinten, ist Günther. Und hier steht Sultan. Sultan spielt immer Mitte, er ist richtig Verteidiger. Ja, und hier steht alle Eritreanische, spielt alles auch gut. Da ist auch gute Jungs. Das ist Siri Juan بدل من كرانسا. مركها قف دود المش بدل سبراني. والله على دي ويا يارتو بس بدل وينسان. Jetzt hat es schon angefangen und gucken wir gleich, was da Dings passiert. Jetzt Daha, er spielt die ganz gute, er spielt die Musa. Mihudin hier heißt. Dadir hier, Dadir spielt jetzt gute. Dadir spielt jetzt gute. Erst Daha. Daha jetzt gibt, das ist schon vorbei. Nein, da hatte schon. Da hatte schon. Das hat einen Handball. Gegen Somalische. Sultan geht jetzt Sultan läuft gut jetzt und Abschakur auch. Und hier vorne bleibt Uma und Frole. Und 4 hinten spielt italienische Leute. Und ja, die italienische macht jetzt einer Ding so, macht ein bisschen Kraft, so Dinge, die Jungs haben. Ja, das ist die, guckt die italienische, macht einer Spaß und Dings. Der Ball kommt jetzt. Und das FIFA hatte Kopf. Aubere hat den Kopf weggemacht, der Ball läuft da Ding ist. Das ist schon weg. Das Abraham hier kommt. Al-Shukur kommt jetzt. Dadir hatte. Die Ball Dadir hatte. Und Frau läuft jetzt. Omar hatte schon jetzt. Jetzt schon weg, Oma. Gute, Oma, gute. Was denn? Ich? Ja, ich bin ein guter Spieler. Aber es gibt ein Problem. Ich habe die Jungs, die beiden, Eritreanisch habe ich einen Bescheid gesagt. Ich will das. Ja. Jo, klar, okay, mach das. Guck mal, ich habe die Jungs alles angerufen, habe gesagt, ich wollte heute Dings hier spielen. Das heißt, ich kann nicht spielen. Ich kann nicht mehr spielen. Weil es so viele Jungs da sind. Ich habe alle angerufen. Hast du gehört, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er mehr bleibt bei mir. Ich weiß das. Garre hast du, Garre. Ich bin Alte. Ich kann das Ding ist alle rum. Nur in 20 Minuten kann ich so rum. Ich stehe Trainer. Ich war. Das ist Video Coach. Guck mal. Was macht der? Video machen, ne? Guck mal, was macht? Omar! Guter Junge, Omar. Guter Junge. Was sagst du, Garre? Was sagst du heute? Nix. 2-2? Jetzt wie viel ist?
2 1. Lieber Hauber. Okay, bitte. Was ist das? Arab. هو سوي لو يفريو ندوب يقولون صراحة كلام. أبشر أتري. كان عليه قرآن كسر كلام. على الله لكن إنده شو تكسر ده. على عدان كاس. عشقو سرا قري بيسكم خلاص ليش اكي ولا وجبيك عاد وجبي لكن لازم ما خش فاول على تستات تكتيك يا هات النور دبال ناني كافو ما ابا تسجل ما تسجل تنفس فاس Ja, ich will nicht kaputt, Bruder. Krankenhaus, ich will nicht, Bruder, Wallah. Da kann ich. Jetzt eine Eckerball gegen somalische Leute. Ich weiß das genau nicht, ob das rein ist oder nicht. Aber gucken wir später. Hallo Jungs, wir sind draußen. Wir sind raus. Oder? Ja, so ist. نادي صاحي لوري bal ka waran bal muxudiin maadaama galabtii halkan ciyaar aad wanaagsan ay ka dhacday bal ciyaartii sidee ku soo dhamaatay bal daawadayaasha والله ciyaartii horta ciyaar aad u fiican bay ahayd yani labada kooxood way fiicnaayeen حتى معناها دالك واحد كذا انت حتى عدك وحوجا حبيبه كنت لكن الحمد لله رب العالمين وان بدني ilaahay baana maanta askale afar iyo laba aan ku badinay laba gool baan ugu horeynay gool bay naga keeneen gool kale aan ugu darnay iyaguna gool kale naga keeneen mid kale aan ugu sii darnay adu gabagabadii ciyaarta kabacdi adu guushuna saasay macnaha Soomaalida ku raacday waana nu badinay ilaahay mahadiyeen alxamdulillah rabbil caalamiin dhamaan ciyaartooyda aad iyo aad baan u faraxsanahay lugtan maadaama nu badinay insha Allah lugta xigtana inaan badinaa rajeynaa marka diyaar garow fiican baan u galeynaa insha Allah waan gartay kulay maanta waxaan u maleynayaa in Soomaalida ay ahayd home oo gurigeeda lagu ciyaarayay bal kulankan dambe ee lagu ciyaari doono xaafadda Eliteria bal ka waran sidee kulankaas maxay ka rajeynaysaa والله كلن كاس يعني waxaan ka rajeynaynaa laftirkiisa inaanu is adkeyno oo mataqaanay aanu ka badino walow ayaga laftirkoodu ay yani is soo adkeyn doonaan laakiin mar walba yani anagu waxaan isku daynaa inaanu guuleysano mar walba inuu guush dhinacayaga markaan isku daynaa dhamaan yani ciyaartooyada dhanna yani diyaar garow fiican iyo niyad bay u hayaan marka aad iyo aad baan guul u rajeynaynaa okay waa mahadsantahay kaas wuxuu ahaa saaxiibka Muxudiin oo runtii maanta galabta kamid ahaa ciyaartoydii Soomaalida ciyaaraysay marka Muxudiin aad baa mahadsantahay saaxiib macaan okay ciyaartii hadda way soo idlaatay sida u jeedaan dhalinyaradaas waa dhalinyaradii Eliteria oo runtii garoonka hadda ka sii huleelaya ciyaartiina waxay ku soo dhamaatay sida uu idin sheegay Muxudiin 4-2 ee guusha ay ku raacday Soomaaliya runtii ciyaartooyda Soomaaliya maanta waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo runtii dadkii daawanay aad u soo jiidatay kubadahoodii ayaa waxay ahayd kubado runtii aad isku dhiibayeen oo tiktaag ay ciyaarayeen taasna waxay ahayd dhammaan taageerayaashii ciyaarta ka soo qaybgalay mid soo jeedatay waxaan u rajeyn doonaa kulanka dambe ee soo socdo in insha Allah Soomaaliya kulanka dambe ciyaari doonto in kubad tan lamida tan ka sii qurux badan inay soo bandhigi doonto guushane dhankooda ay gaari doonto guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii yara ah idinkaaga diyaarinay kulankii galabta ku dhaxmaray magaalada Gießen ee wadanka Jarmalka runtiina kulli ciyaartan waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan marka guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii dhanka kaamirada waxa idin jooga aniga Axmed Cabdullaahi Cumar Talyaani kaamirada labaad waxa kulli inoo hayay Badri iyo rag kale oo ayagana kamid ahaa Cabdicasiis ayagana kaamirada noo hayeen marka wabillahi tawfiiq